Suldaanka beesha Maxamed Subeer Suldaan Cabdiyare Suldaan Cabdi Oogle ayaa qaadacay shahaadada musharaxnimada ee ay guddi siyaasadeedka ku sugan magaalada Nairobi ay siiyeen mid ka mid ah musharaxiinta u tartamaya kursiga koonfurta Wajeer ee beesha Maxamed Subeer ay sheegeen in uu noqonayo musharaxa Puntland. Suldaanka beesha ayaa guddiga ku eedeeyay inayna qaybaha bulshada ka talagelinin xulashada musharaxnimada dhanka kaleetana ayna bulshada qoyska Maxamed Subeer ayna ku qanacsanayn guddigani. guddiga isaga muddo badan yaa guddinimada uu qabiilka aga gooxayay hasa guddiga Nairobi iyo guddiga Wajeer labada guddi aad baa looga gooxayay maxaa yeelay nin iska socda baad arkaysaa guddi baan ahay leh ku kale loo yeeranayo marka way tageen aniga wax aan ka ogahay ama wax laga socodsiiye ama madaxdii Maxamed Subeer culummadoodii lagala socodsiiye ama odayaashii laga socodsiiye ama waxgaradkii lagala socodsiiye ama mutaxallamkii lagala socodsiiye ma ay jirin xanna way jirtay oo yani maaragtaa nimanka ayaga niman guddinimadooda la ictiqaadsan yahay oo guddi ahaan loo og yahay siday ku dhacdaba ku dhacday ma ayan ahayn hase ahaatee ninka ay way soo saareen aan maqlay waa nin Maxamed Subeer xaq buu u leeyahay inuu tartamo waa nin Maxamed Subeer waxaa jiri jirtay nin ragga inuu soo istaago laba saddex nin ay soo istaagto afar nin soo istaagaan odayaashun baa haddana kala bixin jiray oo dhihi jiray adiga safarda dambe lagu fiirin lagu kitaabdii laakiin tii iyada ahayd ma ayan dhicin niman baa yireen lagama daba hadlayo dadka voterska oo kuraha ridi ama wadanka saakunka kuana guddinimadooda bay diidan yihiin guddinimadooda yay diidan yihiin oo dad yani maaragtay lagu kalsoon yahay ma aad buguux badan oo jira aniga suldaanka guud oo Maxamed Subeer hadii aan ahay qoys walba saddex nin buu leeyahay qoys kasta oo Maxamed Subeer saddex nin oo gaasiye oo cidooda maalan yaa jira hal nin oo lagala socodsiiyay arinta iyada ma ay jirto nin baan soo qaadnay bay dhaheen intaas oo nin oo taagan vote baan sameeynaa bay dhaheen ayagoo 10 dadweynaha laga rabay inay ku ridaan 12,000 ama 20,000 ba ma garani guddinimadooda bay ku qanacsaneenba marka ma la tartamaya ama wax baa la doonahay mase lacag keen waan ku soo bixinay meel lagu soconay ama kana ixiga marka ma aanan jecleen nimankan guddiga inkastoo laga buuqay ma aanan jecleen inaan dhaxboodo intaasoo siin baa igu soo dhici haysa oo qabiiladii kale odayaashii maaleen ay leeyihiin shir noo qabo nimankan guddiga ma rabno annaga nin na anfaco yaa keenayna Suldaanka ayaa ugu baaqay in guddigani miiska wada xaajoodka dib ugu soo laabtaan si musharaxiinta si nidaamsan loo kala reebo isla markaasina la waafajiyo nidaamkii lagu kala reebi lahaa. aniga waxaan codsanayaa waxa weeyaan guddi ma jiro guddi mana jiri doono waxgaradka Maxamed Subeer ha soo imaado ha la fariisto wiilasha taagan hawada imaadaan annaga kala reebayna qaar faataxaan u marayna qaar safar dambaan u ballan qaadayna ma garanaysa ma ogi rag taagan ninkan aytaan rabnaa taayada intay ka shaqeynayay xukumaanayay amarka asaga ay siinayeen oo ka ogolaanaya waay midda kale labayso way is og yihiin guddigan Maxamed Subeer inuusan rabin ma aanay rabin way ogsan yihiin oo lagu qaracsan nin walbo aniga shanta dab Maxamed Subeer nin walba saddex nin baan ku leeyahay ama ilaa ma afar nin baan ku leeyahay oo ugaasi oo cidooda matalow yaan ku leeyahay hal nin oo laga qayb galiyay aniga suldaanka hal dadaar sidaan aan rabnaa waan fariisanaynaa kaala dhex fariiso ahaatay waligood ima yeelin
weligoodii may dhihin bas ayaga go'aan bay gaarayeen waa dowladdii Maraykanka oo Soomaaliya ku duuli hayso amarku uu bixiyo bahalka kale si kastaba haatee guud ahaan qaybaha kala duwan ee bulshada ayaa waxa ay si weyn ugu diyaar garoobayaan siyaasadda bisha 8aad ee sanadkani kuwaasi oo sameynaya hayb qabiil iyo welibana wada xaajoodyo ay ku kala reebahayaan musharaxiinta isku haybta ah. Haashim Barar, warbaahinta Kulmiye.